انت وليبا waxa u raacda waxay yiraahdaan globalization kuwa maxay globalization waxa weeyaan saddex shay inay xorriyadooda la aqbalo xorriyatul maal wal badaa'i dhaqaalaha dunida inuu sufuraado iyo bay yiraahdeen xorriyatul afkaartuna inay soo wareegi karto iyo xorriyatun naas dadkuna inuu socon karo dunida meel kasta tagi karo laakiin globalization-ka markay qaateen dhan quray u socotaa adiga dhankaaga wax kasto ka taga qaanuun ba xadeynaya yani badaaicdu xaqiisa ka imanaysa magarar galbeediya ku xooga waaweyn badaaicdooda dunidoo dhan la leeyay meel laba weynaan laga celina wayna saxeexda okay aniga taydana taadu standardkii may gaadhin baa lagu oranaya keeni maysid kalluunka haddaad badda ka soo qabato tidhaahdaa anagu kalluun baanu haysanaa waa la odhanaya waraaqdiisii caafimaadka aanu wadan waraaq caafimaad waanu u samaynaynaa laabkiinaan standardkii dunidu ictiraafsanayd ahayn marka adiga xabadaada kalluunka ee badda ku jirta xabadiisa kalluunka way ku iman kartaa adiga si xabadaada kalluun ma tegayso neefkaaga adhiga adiga waxa lagu leeyahay ma wato hilibkiinu waraaqdii caafimaadka aanu haysanin war waa la baadhay maya laabkiinu laguma kalsoona maya laabka khubaraa joogta maya laababkiinu waxaanay lahayn standardkii caalamiga baan gaarsiisnay maya governmentkiinaan systemkiisu la ictiraafsanayn aan la aqbali karaynin marka dunida miskiinka ah oo dhami wax ma dhoofin karo laakiin ninka xooga badan leh wixiisu isagu waraaqiisu waa sax wixiisu waa sax globalization-ka ku socota isagu waa xor u socon karaa wadan nafiisa looma jeeda adiga maya adiga waa khatar baatay ama irhaabi baatay ama qaxoontaatay ama kan baatay marka adiga in fiisa lagu siiyaa waa adagtay isaga laakiin waa inuu helaa isaga sharcigu uma diidayo uu helaya xorriyatul afkaarki deemka waxa loo helay means uu ku fulayo wadan waliba waa de Facebook iyo waxaan yareeyay jeebka ku sida Northern bal inoo dhiibay marka afkaartuna iyana waa inay socotaa إنسانك عينك سي ما أنت الدنيا كنا الواحد ربان إنه انتماء وايو بدون هوية إنه نقضه